إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرستي جنها كورابي وحا صلادي عصر كدب سيار قرنه لوغو اسي حبالها دهبشيله كونفورت magaalada Burco hogaankii tababarka ciidanka xeebaha Soomaaliland marxuum Cabdiwali Cabdullaahi Warfa iyo sidoo kale marxuum Axmed Casiir oo shil baabuur ku geeriyooday aaskii labadani marxuum ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco xildhibaano saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Burco aasi kadib mas'uuliyiinta iyo sidoo kale dadweynaha ka soo qayb galay ayaa ka warramay taariikh nololeedka marxuum Cabdiwali Cabdullaahi Warfa oo ahaa hogaankii tababarka ciidanka xeebaha Soomaaliland iyagoo ku sifeeyay inuu ahaa adoon afgaaban iyagoo uga marxaati kacay inuu ahaa adoon Ilaahay waxaana uu dhignaa hadalkoodii sida tan raxiim qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan uga tacsiideynaya marxuumiinta Korneyl Cabdiwali iyo Axmed Casiir oo shil gaari ku geeriyooday maanta xabaashoodii aan joogno marka hore Ilaahay waxaan uga baryayaa marxuumiinta inuu jannadii firdawso ka waraabiyo qabriga u waasiciyo su'aashana uu kula siiyo waxaan joognaa xabaalihii daabshiil aaskii Ilaahay u naxariisto subxaanahu wa ta'aala Korneyl Cabdiwali oo shil baabuur ku dhintay si degdega waqtigii Ilaahay ugu yimi iyo waliba Axmed Casiir oo la socday labadoodaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa in Ilaahay jannatul firdawsa alacla uu ka waraabiyo waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Ilaahay ha u naxariisto Cabdiwali Cabdullaahi Warfa iyo Axmed Casiir geeridu waa xaq geerida ku timi qof walba uu dhadhaminaya halkaasaynu ku wada qorannahay qof walba waxaanu markaa uga baryaynaa Ilaahay duca inooga baahan yahay maanta in mataqaana Ilaahay qowlka saabit ka haleelsiiyo in mataqaana Ilaahay u naxariisto in Ilaahay mataqaana Cabdiwali nin fiican buu ahaa Axmed Casiir nin fiican baa ahayn labada nin baa ahayn waana qiin labada nin ba muddaanu saaxiibeyna wali qaasan Cabdiwali saaxiib aanu ahayn waxaanu ku walaalownay diinta waxaanu ku walaalownay dadnimada waxaanu ku walaalownay dadka waxaan leenahay Ilaahay sida maanta oo aragtaa si loogu yimi haday ciidankii qaranka tahay iyo haday tahay dadweyne gobolka Togdheer oo aanu kala maqnayn iyo ku hargeysa ka yimid maanta halka xabaashiisa ay isugu yimaadeen korneelku wuxuu ku dhashay magaalada Burco wuxuu ku barbaaray Muqdisho wuxuu 5 ka baxay dugsiga sare ee Balcad waxa uu galay 6 kulliyadda tababarka ee difaaca qaranka iyo kulliyadda Leyli Sarkaal 8 ilaa iyo xoreynta dalka ayuu ahaa mujaahid 2000 ilaa 2005 wuxuu galay koorsooyinkii military ee Ethiopia isagoo ciidanka qaran ku biiray wuxuu galay wixii darajo uu soo maray iyo xilal ilaa Seylac ilaa iyo taliska imka hogaanka waxa sheegay Korneyl Haaruun in taariikh nololeedkiisu runtii saas uu ahaa kullu nafsin daa'iqatul mawt qof waliba waa dhimanaya waxa la yiri malakumowdka waxa la yiri orodoo ka soo qaad nafta markaasuu yiri maxaa loo bixinayaa markaasuu yiri dadka u magac bixinaya qaad waxay oranayaan mid kaliya fariistay mid waxay oranayaan baawur baa jeeray mid xabad baa ku dhacday marka magacii baa u baxay maanta ugu baxay inuu shilka noqdo waa geeri naxdin laba ah runtii sarkaalkayaguna sarkaal aad u qiimo badan buu ahaa labadoodaba waxaan ka tacsiideynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ciidamada ilaalada xeebaha ayaa ka tacsiideynayaa sarkaalka iyo ninka shicibka la dhintay eheladoodii iyo qaraabadoodii dhammaan iyo wixii intii garanaysaba marka hore waxaan leeyahay labadoodaba Ilaahay u naxariisto sanada firdawso Ilaahay hagay dadkoodii iyo eheladoodii samariyeen ha ka sii waxaan halkan tacsiid tiiraanye leh uga dirayaa gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ay ka geeriyoodeen Korneyl Cabdiwali Cabdullaahi Warfa iyo Axmed Casiir Allah u naxariiste Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco